السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا ونكسن دا وديال ميل والبود نغا دغيسانيسان كسو دوادا war waxaan dal iyo dibad inaga hayno halkan inagu soo gudbin doona haduu eebeedmo qodobada warkeena ugu muhiimsan waxa kamid ah ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya oo ka soo laabtay dagaalkii uu kula jiray kooxaha TPLF wuxuuna sheegay in uu si nabad ah uga soo degay magaalada Addis Ababa wuxuuna ku hawlan yahay la wareegida xafiiskiisii ra'iisul wasaarenimada dagaalo xoogan oo laga soo sheegayo magaalada Desai iyo agaarkeeda sidoo kale wararkeena waxaad ku maqli doontaan qodobo aad xasaasi u ah haduu eebeedmo warka waxa ay la falanqeynaya saaxiibkay Santag maxaa u dambeeyay wararkii ugu dambeeyay dagaaladu ka socday magaalada Desai iyo sidoo kale agagaarkeeda aad iyo aad baad mahadsantahay wacane Ethiopia waan ognahay inay qasnay dagaalkuna uu muddo soo socday hase yeeshee asbuucyadii ugu dambeeyay ra'iisul wasaaruhu ku sugnaa furimaha hore ee dagaalka wuxuu ka soo hoyay guulo waaweyn isagoo aad iyo aad ugu naalooday ama aad iyo aad si reynreyna u hadlay ra'iisul wasaaruhu wuxuu sheegay inuu kooxdii uu dagaalka kula jiray argagixisada uu gabi ahaanba cagta mariyay wuxuuna sheegay in wali lagu sii raataagan yahay inta dhimanna ay dhammaystirayaan ciidamada federaalka ku sugan furimaha hore ee dagaalka ra'iisul wasaaruhuna hadda wuxuu dib ugu soo laabtay caasimadda Addis Ababa ee dalka Itoobiya wuxuuna la wareegay xilkiisii oo horaantii uu dagaalka markii uu aadayay uu ku wareejiyay ra'iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya waxaana ra'iisul wasaaruhu si hadda saxa uu la wareegay xilkiisii ra'iisul wasaarenimo ama uu la wareegay shaqadiisii office-ka Santag aad ba maasantahay waxaa laga sheegayaa dagaalo goosgoosa agaarka magaalada Desai iyo buuraleyda ku hareeraysan ra'iisul wasaaruhu wuxuu sheegay inuu soo afjaray kooxihii uu dagaalka kula jiray ee TPLF maxay tahay sababta keentay inay TPLF ay kusoo kala fireeyaan waxayna sheegeen TPLF inay iskaga baxeen magaalooyinkaas istiraatiijiyad dagaal soo kama muuqato in istiraatiijiyad dagaal ay sheegayeen inay TPLF dib oo la soo laabteen oo dagaaladan see wax u jira waxaana waa mahadsantahay dagaaladii weli way socdaan ra'iisul wasaaruhu muuse dhihin gabi ahaanba dagaaladii waan soo afjarnay muuse dhihin hase yeeshee deegaamadii ka tirsanaa deegaamada axmaarada ee gobolka Wollo ayaa gabi ahaanba degmooyinkii waaweyn la qabsaday kooxahan TPLF iyo Ola ee ka dagaalamaya halkaasi ama gacan haynta magaalooyinkaasi lahana weli waxay ku sugan yihiin buuraleyda deegaamada ayay ku sugan yihiin hase yeeshee degmooyinkii waaweynaa ee ay gacanta ku hayeen ayaa laga qabtay ra'iisul wasaaruhuna wuxuu sheegay in buuraha aan looga hari doonin weli laga dabageli doono isagoo ra'iisul wasaaruhu weli ciidamada dhiirigelino u sameynaya sheegayna ciidamadu inay ku filan yihiin xooga TPLF tijaabana laga qaaday xooga TPLF wuxuuna sheegay ciidamadu hadda inay ogaadeen ayna wiiqeen xooga TPLF iyo goobihii ay haysteenna ay gacanta kaga dhigeen wuxuu sheegay ra'iisul wasaaruhu in dagaalku weli uusan istaagin hase yeeshee ay hadda intii badnayd ay soo afjareen wuxuuna sheegay xooga TPLF inay yihiin kuwo aad u tabaryar isla markaana aan la dagaalami karin ciidamada federaalka isagoo waliba sheegay ra'iisul wasaaruhu in ay si xatooyo ah ama si dhuumaalaysi ah ay buraha ugu jiraan dagaalada tooskaana aysan awoodin inay ciidamada federaalka ay la galaan ra'iisul wasaaruhu sidoo kale wuxuu sheegay in degmooyinkii ugu dambeeyay ee ka tirsanaa deegaamada axmaarada uu gacanta ku dhigay sida degmooyinka Wajila iyo deegaamo kaleeto oo halkaasi ku yaala wuxuuna sheegay ra'iisul wasaaruhu inuu gabi ahaanba si full control uu degmooyinka uu gacanta ugu dhigay haddana buuraleyda looga dabageli doono xooga TPLF laakiin waxaan ognahay Santag in kooxaha TPLF weli ay ku dambeeyaan magaalada Mersa Amba iyo Magdalena iyo sidoo kale magaalada Goshmeda oo ah magaalooyin waaweyn oo ka wada tirsan gobolka Wollo ee axmaarada weli TPLF way ku sugan tahay gobolka axmaarada oo lagama cirib tirin ciidamadan hadda meesha ku sugan ee sheegaysa inay geesiyin yihiin oo TPLF ay riixeen aad leedahay ra'iisul wasaaraha moraalka siinayna meesha way ku sugnaayeen markii TPLF magaalooyinkan aadka u tirada badan ay qabsanayeen soo lama dhigi karo hadduu mar ra'iisul wasaarihii laabtay oo uu ku laabtay xafiiskiisii TPLFna way soo gelayaan sidii waagi hore ay u qabsadeen bay u qabsan karaan horta waxaad moodaa dagaaladan Ethiopia jiid aan ku jiiday yaad moodaa oo muddo saas ayuu ku soo socday toddobaadkiina waxaa la riixayay qolo ayaa la riixaa toddobaadka kalena qolo ayaa la riixaa waa qaabkii hore ee dagaalka uu ku bilowday sidii uu ku soo socday hase yeeshee maalmahan hadda ugu dambeeyay ama labadii asbuuc ee ugu dambeeyay TPLF waxay ahaayeen kuwa iyagu la eryado oo la ceyrsada ayay ahaayeen waxaana taasi maqraatay kaga ah
maalintii TPLF uu ra'iisul wasaaruhu dagaalka kusoo qaadayay uu furimaha hore ee dagaalka u imaanayay waxay u dhawaayeen caasimadda Addis Ababa ayay u dhawaayeen waa kii caasimadda Addis Ababa ay khalkhal ku jirtay haddana deegaamada laga qabsaday waxay ka badan yihiin ilaa 20 ay ka qabsan yihiin hase yeeshee ra'iisul wasaaruhu dhinaciisa wuxuu qiray in dhammaan deegaamada axmaarada degmooyinkii waaweynaa gacanta lagaga dhigay TPLF dhanka TPLF naftirkooda warar ka soo baxay waxay sheegeen in ay jab weyn kala kulmeen dhinaca ciidamada dowladda federaalka tan iyo ra'iisul wasaaraha inta uu dagaalka uu kusoo biiray micnaha uu imaaday furimaha hore ee dagaalka Santiago TPLF waxay sheegeen afayeen u hadlay wuxuu sheegay in ay gudaha gobolka axmaarada ugu jiraan in ka badan ama masaafo gaadhayo 240 kilomitir markii laga tiriyo xuduudda ay leeyihiin gobolka axmaarada soo dhul aad u weyn maaha dhulka ay haystaan haddii la fiiriyo afhayeenku waa dhici kartaa inay runtii tahay markii laga eego dhinaca sida uu hadalka u dhigay ra'iisul wasaaruhu hase yeeshee ra'iisul wasaaruhu dhinaciisa wuxuu tilmaamay isagu magaalooyinkii waaweynaa ayaan gacanta kaga dhignay uu yidhi muuse dhihin ra'iisul wasaaruhu dhammaanba deegaanka axmaarada waan ka cidhib tirnay muuse dhihin wuxuu sheegay in buraleyda weli ay ku jiraan oo maaragtay buraley haddii lagu dhahana dhulka axmaarada inaad ogtahay mooyaane dhul bannaan ma laha dhulka buuraha hoostooda waa dhul la degan yahay dad shacaba ay degan yihiin micnaheeda waxay tahay weli TPLF way ku sugan tahay deegaamada axmaarada dhinacan kaleeto TPLF iyadana aad leedahay waxay sheegtay 240 kilomitir ayaan gudaha ugu jirnaa run ayay noqon kartaa sababtoo ah nimankan waa jabhadeynayaan buuraha hoostooda ayayna ku jabhadeynayaan waa ciidamo inay si gaadma ah ay maaragtay usoo weeraraan ciidamada dowladda federaalka mooyeene aan si foolka fool ah aan dagaal ula gali karin midda kaleeto ma laha meel saldhiga oo hadda lagu hagaago sababtoo ah waagi hore waxay haysteen degmooyin waaweyn ay haysteen laakiin hadda sida ra'iisul wasaaruhu uu sheegay iyo sida uu u sheegay afayeenkaba hadda way isku dhadhow yihiin sababtoo ah ciidamada TPLF haddii la helo meel ay joogaan ama la ogaado meel ay joogaan diyaaradaha droniska ee dalka Ethiopia ayaa duqeynaya taasina waxaad ka garan kartaa inay ciidamadu weli ay buuraha hoostooda ku dhumaalaysanayaan oo si foolka fool ah aysan dagaal aysan usoo geli karin laakiin Santiago weli nimankani magaalooyin waaweyn ayay ku sugan yihiin oo muhiim ah sidaa darteedna meelahaasi way ku yeelan karaan meelo fariisima Santiago ra'iisul wasaarihii wuu soo laabtay dagaalkina weli wuu socdaa ra'iisul wasaaruhu wuxuu sheegay in uu xiriirka dariska yani wadamada dariska la uu wanaajinayo oo yani wadamo badanna madaxweynayaashooda uu soo wacay sida Kenya iyo Djibouti Soomaaliya wadamo aad u tiro badan ayuu carabaabay inuu xiriirkooda si fiican u wanaajin doono dalka Ethiopia weli xaaladiisa way qasan tahay oo kooxaha OLA iyo kooxihii kale kulli waxa weeye dagaal ayay wadaan ra'iisul wasaaruhu soo lama isma dhigi karo hadda mar hadduu dagaalkii ka soo laabtay shaqo weyn way sugaysaa kooxihii iyo wada hadaladii iyo wixii xagee mari kartaa xagee maraysaa hadda markii sida aan ognahayba dalka Ethiopia dalalkan hadda uu sheegay ra'iisul wasaaruhu inuu xiriirkooda xoojinayo waa dalal marka horeba xiriir uu ka dhaxeeyay sababtoo ah kuma soo darin dalka Suudaan oo maaragtay xuduud leh dalka Ethiopia kuma soo darin sababtoo ah calaaqad maaragtay fiican kama dhaxeeyo dalalkan uu sheegay waa dalalka Ethiopia garab taagnaa ee xiriirka fiican uu kala dhaxeeyay sida Soomaaliya Eritrea iyo Djibouti oo kaleeto iyo ilaa Kenya oo iyada naftirkeeda madaxweynaha dalka Kenya uu gaaray bishii la soo dhaafay uu gaaray dalka Ethiopia una kala hadlayay xaaladahan hadda xiisadahan ka taagan dalka Ethiopia sidii loo dejin lahaa sida aan ognahayba dowladda Mareykanka iyo dowlado waaweyn waxay taageerayeen ama si hoose ay ula shaqeynayeen xoogga TPLF si way ku guuldareysteen taageeradaasi marka waxa uu ka yaabay ra'iisul wasaaruhu in loogu soo dhunto dalalka dariska marka uu ku qasban yahay inuu xiriirkoodii hore uu sii adkeeyo si loo helo si uu u helo madmadow haddii uu imaado ama dalal madmadow kaga jira loo maaragtay loo adkeeyo oo loo ogaado dalalka lagaga soo wajahayo ama dalalka loo soo marahayo ee dalka Ethiopia lagu burburinayo ra'iisul wasaaruhu hadda waxaad moodaa inuu u soo laabtay xafiiskiisii iyo xidhiidhadii dalalka ka dhaxeeyay iyo dhinaca diblomaasiyadeed ee dibadaha sidii uu u adkeyn lahaa suu wanaajin lahaa inuu u soo laabtay ayaad moodaa aad baad mahadsan tahay daawadayaal warkii oo aan ku falanqeynaynay xaaladaha dalka Ethiopia waa naga intaan warka xigo ku kulmi doono waxaan inaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo